maxaad la hormari ladahay? Saaxiib, guusha aan kaa tuso meel aanad hore uga baran waa arrin haddii aad iska jirto aad wax badan heli doontid adduunkan. Waxaa jira arrimo haddii aad sameeyo aad hanan kartid guusha, taas lidkeeda waxaa jira arrimo haddii aad iska jirtid guushu ay saaxiib kula noqonayso, waana halka aan wax kaa tusi doono. Qaybta hore aan u bixiyo sameeda, qaybta kalena aan ugu yeedho iska jirta. Inta badan waxa aad looga hadlaa sameeda halka iska jirta aan cidiba ka warhayn. Iska jirta aan kuu tilmaamo qodobka ugu weyn ee aad la hormari ladahay, waa arrinka kaa hortaagan aqoonta dhabta ah. In yar oo igu sawira mooyee, arrinkani waa caqabada kaa hor joogta in aad la yeelato xidhiidh fiican Ilaahay subxaanah wa tacaalaa. Waa dayrka kaa xiga inaad shaqo fiican hesho ama aad samayso dakhli kugu filan. Aan ku soo koobee, waa dhibta ugu weyn ee aad la hormari ladahay adduun iyo aakhiroba, arrinkaasina waa dunuubta. Qofku uu dambaaba markaasuu ku waayaa arsaaq u soo socotay, uu dambaaba markaasuu duli iyo hoosayn ku dareemaa, dambaaba markaasuu cabsi iyo qaaqaayiraad bilaabaa ku wajahan cid kasta, uu dambaaba markaasuu Ilaahay ku nacaa, dadkuna ku karhaan, uu dambaaba markaasuu galaa god madow oo aanu weligii ka soo bixi karayn. Dembigu intaas iyo wax ka badanba uu keenaa ee bal horta ogow, dadkana soo warayso. Si aad u guulaysato saaxiib, badso towbada, joogtee istikfaarta, iska jir dunuubta, Ilaahayna tala saaro. Waxa aad arki adiga oo waxa aad u gacan qaadaaba kuu hirgalo, si fududna u helay nolol horumar leh.